بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku suganahay magaalada Nairobi wadanka Kenya barnaamijyo badan ayaa waxaan nooga barateen in dad lagu caawiyo maanta barnaamijkan uu ka duwan yahay barnaamijkan wuxuu uga duwan yahay barnaamijyada horeeto gabar walaasheen ah ayadoo wadada maraysa waxay noo sheegtay inay rabto inay muslim noqoto waxay u dhalatay wadankan Kenya waa qof diinta Christianka markii hore haysatay laakiin hadda waxay rabtaa inay noqoto qof muslimad ah oo diinta muslimka inay soo gashay rabtaa marka waxaan rabnaa inaan aayadaan la hadalno haddii run ay ka tahay inay diinta muslimka ay raali ka tahay inay noqoto marka waxay ku hadlaysaa luqadda Sawaaxiliga marka waxaan noo turjumi doonaa walaasheen oo luqadda Sawaaxiliga aniga iga fiican magaceeda ayaan weydiinaynaa iyo sababtay rabto inay u soo birto diinta islaamka oo majina doonaan Purity Kanini ayaa la dhahaa mbona unapenda kuwa Muislamu Nimeamua na roho moja napenda dini ya Kiislamu waxaan weydiiyay maxaa u jeceshay inaad diinta islaamka ku soo birto waxay dhahay niyadeyda jecelaatay qalbigana waan ka jeclaaday inaan diinta islaamka aan ku soo beero ningependa kukuuliza umependa kwa nia kuwa Muislamu ama utakuja kubadilika baadaye sitabadilika waxay dhahay diinta aad baan u jecel yahay mana isbedeli dooni diinta islaamka ayaan ku jiri doonaa napenda nini naamini nini kutoka dini ya Kiislamu ndio maana umependa Nimependa vile wanaongopa Mwenyezi Mungu na wanapendana sana sio kama hizi dini zingine wako na upendo sasa Mungu anataka nikae na wao ndio nikuwe na hiyo upendo marka waxaan weydiiyay waxay u aaminsan tahay inay diinta islaamka soo gashay waxay dhahdeen waa dad isjecel waa dad Ilaahay ka cabsoonayo waa dad aan fiiriyay inaan la noolaan karto okay Faisal aan ku wareejinaa waxay kaloo noo sheegtay in macnaha ay sheegay diinta ka go'an tahay Soomaan ay rabto diinta inay ayda gasho luqadda Sawaaxiliga lagu wareystay sawjeedin wayna ku qanacsan tahay wayna ku faraxsan tahay intaan masaajidka geenin waxaan rabnaa inaan asturno gabar walaasheena waxay noo keenaysaa halkii lagu asturay xijaabki iyo kan dusha la saaranayo iyo cabaayad si jirkeeda loo asturo daroojeedin gabadha walaashiin sida loo soo asturay waxa kaliya noo dhiman waxay tahay in ashahada loo qabto oo la fahamsiiyo macnaha diinta muslimka ay waxay tahay ma sha Allah abaya gabadhan soo asturtay soo labistay ilaa ajri xasanada ka siiyo marka oo ku dhiibaya adigana ما شاء الله waxa la dhahaa Suhuur Maxamed ما شاء الله intana waa gabadh oo ma aragtay soo islaamayso walaasheen ah waxaan rabnaa inaan caawino ku caawino halkan Faisal joogo oo helay barnaamijka soo helay nus saac ka hor ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله marka hadda sida hore iyo hadda sida ku quraxsan tahay ayaan xeerka weydiinaynaa iyo different ee idu aragto marka hore iyo hadda siday tahay ningependa kuuliza vile umekuwa umevaa before and now umeona kuna tofauti gani kuna tofauti maana nimejistatiri sionekani uchi wangu niko sawa waxay dhahday sidii hore waan ka duwan yahay maadaama hadda aan asturay waxay arkay ma lahayd dhahday jirkeyga soo umependa vile umevaa nimependa sana kabisa umependa waxay dhahday waan jeclaaday haddana she's looking beautiful masha Allah masaajidkan sii geyn doonaa waxaan ku wareejinaynaa maadaama ay luqad kale ku hadlayso luqadda Sawaaxiliga inaan u geeyno culimo diinta si fiican u yaqaanin oo ku hadlaan luqadda Sawaaxiliga ah waxaan geynaynaa masaajidka marka insha Allah culimadan ku wareejinaynaa haddana meeshaan aadayna oo jeedin wala soo asturay asturaad si qurux badan u jeedin sidii hore iyo hadda wax kala duwan haddana waxaan galaynaa masaajidka insha Allah meesha la fariisinayo منجي وقت الله إله الله أكبر الله وأشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم Nzuri. Unaitwa nani? Purity. Purity. Wewe Purity? Wewe unanishua lakini. Purity tayari umevaa na mnaona nayo kuna shida gani? Nataka kusilimu. Wewe?
Takbir. Kuna jambo gani limekufanya wewe kumekufurahisha kwa wewe kuwa Muislamu? Kitu gani kimekufurahisha wewe kuwa Muislamu? Kwa sababu naona umekuja wewe tayari ushavaa unaitwa purity. Kitu gani kimekufurahisha kuwa Muislamu? Mimi napenda dini na ninapenda na moyo wangu wote. Unapenda dini? Ndugu yetu wa gari kwanza tasubiri kidogo. Unapenda dini ya Uislamu? Hiki kupenda kitu lazima kuna jambo fulani inaweza kufanya ukapendelea kitu. Kwa mfano, mwanaume akipenda mwanamke lazima apendeshwe na ile sura yake, anaona yeye nzuri kweli, ananifaa. Asema wewe anastahili mimi niishi naye. Wewe bila shaka kuna kitu kimekufanya ukapendeshwa na Uislamu. Kitu gani? Kitu cha kwanza huwa naona wako na upendo sana. Kitu cha kwanza unaona wanapendana sana vile Mungu anataka. Waislamu takbir. Waislamu wewe mwambie watoto wewe. Wacha watoto. Huyu atatoka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada utarudia nyuma yangu Sema Bismillahi Rahman Rahim. Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Sema kwa Kiswahili, sema nakiri kwa moyo bila kulazimishwa na mtu kuwa Muislamu. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nakiri na kuamini. Mwenyezi Mungu niongoze nife nikiwa Muislamu. Takbir wa Islam. Allahu Akbar. Mashaallah. Ushakuwa Muislamu dadangu, kwa hayo maneno machache tu inaitwa kilima peke yake imekufanya uwe Muislamu. Ukisema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah peke yake inakufanya uwe Muislamu. Sasa kilichobaki ni jina ya kujuana. Zamani ulikuwa ukiitwa nani? Purity nani? Kanini. Purity Kanini. Kwanza kama umetengaleva Ketuye Kodha. Okay. Sasa katika Uislamu kuna majina ya kujuana. Hii Purity tunaondoa kwa sababu hii Purity ukiangalia ni mambo ya wazungu haieleweki. Katika Uislamu kuna majina mazuri. Kuna Amina, kuna Aisha. Napata majina mazuri. Jina gani ulikuwa umejichagulia, yani ukisilimu utaitwa hiyo jina? Hadija. Takbir Islam. Allahu Akbar. Takbir Islam. Mashaallah. Dada yetu tangu aumbwe na Mwenyezi Mungu leo analejea kwenda kumsujudia Allah. Wallahi Waislamu, kisababu wewe na mimi tumekuja tumesimama dakika 2-3 akapata hidayah, au watu ambao wamemfikishia, wallahi Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya kiyama. Semeni amina. Islam kumuongoza mtu mmoja ni kazi kubwa sana. Watu wanaona ni kitu mdogo sana, lakini ni jambo kubwa sana, thawabu yake ni nyingi sana. So wewe ushakuwa Muislamu, alafu aliyekuja nawe lazima waelezwe. Hapa kuna madrasa ya watu wa kusilimu ambao samweleze azungumza nao. Kuna madrasa ambao ni free, hakuna kitu utalipishwa, bora tu wakupe time. Kama ni 20 minutes 30 minutes unakuja unasoma, ndio hivyo. Ama 1 hour is enough, unakuja unasoma kila siku. Madrasa ni free, haulipishi chochote. So inakuwa upate elimu yako kwa wepesi. Sawa dadangu
Sawa. Sasa wewe ushakuwa Muislamu, dada yetu katika Uislamu. Haya, patiana microphone, njoo pande hii. Enda uzungumze na hawa. I'm very happy because now I'm a Muslim. So I thank God for that opportunity. So I'm very happy. They have helped me so much. So I'm not going to go back again to Christianity. I'm going to be a Muslim all the days of my life. inshallah abaayno haatan amaanta dhownala socotay waxay ku dhahaday noo sheegtay inay ku faraxsan tahay inay muslim noqoto annagana kulli muslimnimadan ku soo dhaweynaynaa. Assalaamu calaykum. Sida walaalkan Faisal ni sheegay waaye gabadhan walaashan oo muslimada soo muslintay ayaan maanta dhan la jirnay wayna muslintay wax ku qasbay ma laha ayda codsatay inay muslinto marka hadda soo jeedin waan soo muslinay qurxadan ay qabtaa ma sha Allah anaga inoo egtahay haddana telefooni wax waan u iibinayna marka waan la sii socon doonaa insha Allah xaaladaheeda. soo jeedin wadadii silii weynayd waaye waa suuqii ganacsiga ah waxaan soo wadnay gabadha walaasheen ahayd oo gadaasheeda taagan waa kana waxaan ku jirnaa inaan u sameeyno kaar aan u iibino ganacsi soo u bilowdo nolol cusub soo u bilowdo marka insha Allah kaar aan furayna telefoon soo sameeynana waxa uu leeyahay Kenyan waaye luqadda Soomaaliga si fiican u taqaan waa Kenyan English ku hadashaa marka qofkii muslim soo noqdo dabcan saana loo soo dhaweynaya Soomaalidan waxaan leeyahay dadka diinta ka baxayna raba inay diinta ka baxaan ku soo noqdaan diintooda muslimka dadka Kristanka diinta soo galayaan soo jeedin ongea Kiswahili. Nashukuru sana, nimekuwa Muislamu, nafurahia sana kuwa Muislamu, nimependa sana. Takaa katika Uislamu katika maisha yangu yote mpaka siku ya kukufa kwangu. ilaahay ka xamdinaysaa inay maanta muslim noqoto insha Allah hadeertaan waxaan sameeynaa baandheeda dhiibatay kaarki waxaa loogu maqayaa in la siiyo kaarka insha Allah marka insha Allah biidnillah kariim waa ku farxi doontiin waxay sheegtay macnaha sheeg inay rabto inay ganacsi sameeyso soo jeedin meelahan ganacsiga ka socda dadka wax gadaan amla xirta inay wax iibsado marka insha Allah biidnillah kariim waxaan rabaa inaan caawino waxaan gadi karno insha Allah waxaan siin doonaa lacag iyo niyaako niyaato barsana u iibinay insha Allah waxaan darnoo dhiman inaan u iibino kitaabta aan u iibin lahayn waxaan u soconaa meesha kitaabta lagu iibsho marka insha Allah waxa u dhiman meesha kaliya kitaabtana aad u gadana barsada lagu iibinay twende insha Allah ilaahay waa soo muslimiyay macnaha sheeg annaga wuxuu waajibkeena waa ka soo baxnay waxaan rabnaa borso u iibinay kitaabkana darkii salaada ka baranaysa oo ku wareejinayna inay macnaha salaada ka barato shika iyo هنا سلات هنا كسواهيلي كسالة كتابك إذا أنت كلا تنو إن شاء الله ماشي كما تقول علم دونا وحيد الحوار حبانا العجيران جنا عسى كسمينه أبايا وديبي مركا إذا عاون دون تمدام يسوي حلك سبعة نتقنا وكين تجنت هاي إلى أجرك سي أيضا قبل أن ما أنت من السعودية وين عاوسي وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.